shir guddoonka xubnaha baarlamaanka xubnaha wasaaradda marti sharafta dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacay waa cabdiraxmaan cabdilaahi faarax gurub barwaaqo waxaa la ii magacaabay wasiirka wasaaradda warfaafinta sida aad ula socotaan wasaaradda warfaafintu waxay ka mid tahay wasaaradaha foolaadka oo ah wasaaradaha dalka waa halka ummadda laga hago laga hanuuniyo waxna laga baro sidaasi awgeed dhowaanahan waxaa la socoteen inay wasaaradda warfaafinta ama warbaahinta dalkeena oo dhami sida aan ahayn loo adeegsanayay oo qabyaalad loo adeegsanayay hadda waxaa annaga naga go'an inaan wasaaradda ta dowladda iyo tagaarka loo leeyahay midna aan loo adeegsan doonin qabyaaladda iyo kala qoqobidda dadweynaha si taasi noogu hirgasho waxaanu adeegsan doonnaa wacyigelin iyo kor u qaadidda waddaniyadda iyo isjacaylka iyo isu soo dhowaanshaha bulshada koone ilaa koone iga raalli hada wasaaraddu waxa ay noqon doontaa wasaarad isku xidha golayaasha iyo wasaaradaha iyo dowladda waxaanu isla garanay ama noo qorshaysan inaanay madaxda dowladdu xeerkay doonaanba ahaadaane aanay adeegsan doonin warbaahinta gaarka ee adeegsan doonaan wasaaradda warfaafinta ee dowladda si ay taasi u hirgasho waxaanu idinka codsanaynaa haddaad golayaashii tihiin in aad wax kasta u baahan tihiin aanu diyaar idinla nahay oo halkani aanu idiin samayn doona xafiisna lagala soo xidhiidho oo idiin diyaara in aad wax kasta oo u baahan tihiin wacyigelin iyo wanaag iyo tabaabushayn ay idinku adeegsataan ma dhici doonto in suldaan meel reer intuu isa soo taago oo reer farta uga soo luli doono oo loo adeegsan doono warbaahinta halkaa waxaa looga adeegsan doonaa waxbarashada iyo kor u qaadka waddaniyadda dadka waxaanu ku dadaali doonaa inaanu tayeyno barnaamijyada ay wasaaraddu soo saarto hadday tahay xagga wargeysada hadday tahay xagga tiifiyada iyo hadday tahay xagga muxuaha idaacadda waxaa dhici jirtay in weriye wax sheegay in la xidho taasina ay keeni jirtay in ay sumcaddeenna kor u qaado oo dibadda la yidhaha weriyaa la xidhay waxaa noo qoondaysan in aanaan la heshi ama aanaan la xisaabtamin weriyaha laakiin aanu la xisaabtanno muxuu ahaa nimanka agaasimayaasha tiifiyada iyo mulkiilayaasha iyo editirada muxuaha wargeysada iyo niman kale sababtu waxa weeyaan editorka ayaa ka mas-uula hadallada ku soo baxaya wargeyska agaasimaha ayaa ka mas-uula waxaa ku soo baxaya tv-ga sidaasi daraaddeed waxaanu la xisaabtami doonaa editorka oo isagu noqonaya ka mas-uulka ka ah ee inanka wariyaha ee ceerigaabo ama burco ka soo diray ama boorame ka soo diray warka mas-uul kama aha waxaa mas-uulka ah ninka editorka ee oggolaaday in warka fidmada ah dadka loo sii daayo ee dadka laysku diro sidaasi daraaddeed waxay noqon doontaa isbeddel weyn aanu ku samayn doono iyada oo aanan caburinaynin warbaahintii ama xorriyatul qowlkii hase yeeshee loo samayn doono soohdin aan laga tallaabin oo noqon doono mid lagula xisaabtamo agaasimayaasha iyo editoriska iyo nimanka wargeysyada iskale waxaan ku soo gebagabaynayaa runtii hadalkayga dee sidii madaxweynuhu iigu aqoonsaday ama iigu magacaabay sidaas aniguna sidaas daraaddeed
inaan idinka filayo in idinkuna i ansixisaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.